بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيار ميل كستيات جوجتيان كسر هذا برنامج كي سبورتيجا حلو ملك كستات كلاس جوجتيان بارتنا يوتيوب كي عيارها لا تستيب مقال عصب عصله برنامج كنا ما تعن كجدونا سوق كلا إبسي عيارها قرض يوروب أو على تصغد دعسو عرمي واسده كوها بريمير ليغا يان سيبا اجدونا ciyaaryahanka ay la soo wareegeen iyo weli ciyaaryahanka ka tagay kooxaha golba aad taageertid barnaamijkeena maanta aad kala socon doontaa iska bedelin channelka adinkana daawanaysid oo ah ciyaaraha la testiibe waxaa soo kala jiro aan eegi doonaa kulamada maanta la ciyaari doono oo ka tirsan horyaalka Premier League EPL ahna kan ugu daawasho badan caalamka waxaa soo kala jira ka maqneen farqeen aan ku sameyn doono kooxda kubadda cagta Arsenal si qaas ah iyo waliba dabcan kooxda kubadda cagta Liverpool waxaan ognahay in siba kooxda kubadda cagta Liverpool ay iminka dhibaatooyin ka haysato xagga iyo difaacyada waxaa jiro difaacyo la soo wareeyeen iyo waliba musharax kale oo la soo diristay kooxda Reds haddaan ugu cusub tahay subscribe noo saar haddaan naga mitaana like ugu dhiirigelisaan helno saaxiibo wanaagsan siyaado kaleeto iminka kusoo dhawaada wararkeena sportiga haddii aan eegno ciyaaryahan Willock oo ka tirsan naadiga Arsenal ayaa wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta Newcastle United si ahma xilli ciyaareedkan intuu ka dhamaanayo ciyaaryahan Willock ayaa moodaa in siba kulanka Europa League aad uga soo dhex muuqday kooxda The Gunners isagoo u dhalay 4 gool soo kaleetina 4 gool oo kale ku lug lahaa Willock ayaa ciyaaryahan asal ahaan ka soo jeedo qaaradda Afrika balse haysto dhalashada dalka Ingiriiska ayaa waxaan moodaa inuu kooxda Newcastle ka heli doono fursad dahabiya oo isku soo ambixiyo dibna ugu soo laabto garoonka Fly Emirates waxaan moodaa iminka kooxda kubadda cagta Newcastle in aad ugu hooseyso ay kala horeynta EPL-ka isla Arsenal ayaan ku jirnaa soo kaleeto ciyaaryahan Ainsley Maitland ayaa wuxuu ku biiray naadiga West Bromwich Albion uu maamilo tababaraha qabiidka St Allardyce ciyaaryahankan ayaa doorbiday inuu iska tago kooxda Arsenal si ama isagoo doorbiday inuu helo boos joogto ka heli doono kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion ciyaaryahan Maitland ayaa la filayay inuu dib ugu soo laabto kooxda kubadda cagta The Gunners ciyaareedka cusub tababaraha kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaa u ballan qaaday ciyaaryahan Saint Martin inuu boos joogto siin doono soo kaleetana laga yaabo in haddii ay macquul tahay kooxda kubadda cagta Newcastle ay la wareegto ciyaaryahankan hase haatee tababaraha kooxda Arsenal Arteta wuxuu sheegay in wax qorshe ugu jirin Arsenal in ay ciyaaryahankan mustaqbalka dhow ay gadi doonaan waxa soo kale eegayna ciyaaryahan Mustafi waa soo kale ciyaaryahan ka tirsan naadiga Arsenal waxaan moodaa in dhowr ciyaaryahan iska haleeleen kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaaryahan Mustafi wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta Schalke 04 oo ka tirsan dalka Jarmalka ka camalatay horyaalka dalkaasi ee Bundesliga ciyaaryahan Mustafi u saftay kooxda The Gunners 150 kulan waxa soo kale uu la guuleystay koobka weyn ee FA Cup laba jeer ciyaaryahankan ayaa la joogay kooxda kubadda cagta The Gunners 4 sano soo soo biiray xagga iyo dalka Spain siba kooxda kubadda cagta Valencia ciyaaryahan Mustafi ayaa difaac waay araga inta badan adeegiisa u baahan kooxda kubadda cagta Schalke 04 ayaa moodaa iminka inay ku jiraan halka ugu dambeeya kala horeynta horyaalkaasi ee Bundesliga waxaana aad moodayno si toos ugu biiray kooxdaasi Schalke 04 hase haatee ciyaaryahan Mustafi ayaa waxaan moodaa in dhammaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta The Gunners soo kale agaasimaha guud ee kooxda The Gunners Edu uu aad u maqsalmay ciyaaryahankan waxaana uu sheegay inay kooxda Arsenal ay tabi doonto adeegiisa soo kale waxaan eegi doonaa naadiga Liverpool Reds kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waxay la soo wareegeen si ama ciyaaryahan da'yar oo lagu magacaabo Ozam Kabak waxaana ciyaaryahankan si ama uga soo wareegeen kooxda kubadda cagta Schalke 04 ilaa ciyaareedkan uu ka dhamaado soo kale waxaa laga yaabaa in kooxda Liverpool haddii macquul tahay ciyaaryahankani ay ku gadan garaan adduundan 18 milyan soo kale wararka kale waxay sheegeen in soo kale kooxda Schalke ay ciyaaryahankan ay ku doonayaan ilaa 30 milyan soo kale Liverpool waxa haysta dhibaatooyin weyn waxa ka maqan dhowr ciyaaryahan siba kuwa ka ciyaara dhanka difaaca ka mihiin Van Dijk Gomez iyo kan ugu dambe waa ciyaaryahan Matip oo laga yaabay inuu dhamaan ciyaareedkan inta kaarsan
inta kaarsan oo dhan uu seegi doono tan waxa ay aad canuun ku tahay kooxda kubadda cagta Reds ee Liverpool iyo waliba dhammaan jamaahirta kooxda kubadda cagta Liverpool kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa kooxda iminka difaacanaysa horyaalka Premier League iyo ku guuleysteen 30 sano kadib waxaad moodaa iminka inay ku jiraan kaalintii saddexaad iyagoo leh 40 dhibcood waxayna u baahan yihiin difaac waaye araga difaac muhiim ah iminka sa u difaacsadaan horyaalka waxaa soo kale eegayna daayirka difaaca u ciyaara kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa wuxuu ku biray naadiga Nice ee ka tirsan dalka Faransiiska ciyaaryahankan ayaad moodaa inuu wax boos joogta ka waayay kooxda uu maamulo tababare Koeman iminka se wuxuu si ugu biray kooxda kubadda cagta Nice halkaasoo laga yaabo inuu boos joogta ka heli doono soo kale haddii ay macquul tahay dib ugu soo laabto garoonka Nou Camp Stadium kooxda kubadda cagta Los Blancos ama Barcelona ayaa sidoo kale inta badan uga liitay cagayo difaaca waxay si aad u badigoobeen difaaca kooxda kubadda cagta Man City kaashiya balse nasiib daro maysan macquul noqon inay ciyaaryahankaasi ay helaan iminka waxaan eegaynaa horyaalka Premier League kulamada maanta la filay in la ciyaaro kulanka ugu horeeyay wuxuu dhexmari doonaa naadiga Sheffield United ay waxay soo dhaweyn doonaan naadiga West Ham United sagaalkii galab habeenimo halka Wolves ay qaabili doonto naadiga Arsenal waa isla sagaalkii habeenimo Man United ayaa waxay wajahi doontaa Southampton 11 iyo qadar 15 daqiiqo Manchester United caaw haddii badiso soo kale waxay la dhibx noqon doontaa naadiga Manchester City ay diriska yihiin hase haatee naadiga City aad moodaa inay dhanka golasha ay soo kale aysan macquul noqonin in United ay hogaanka sii qabato kulamada kale caaw la filayo waxaa kamid ah Newcastle ay wajahi doonto naadiga Crystal Palace isla 11 qadar 15 daqiiqo inkastoo ognahay in kooxda kubadda cagta Newcastle United aad moodo ciyaareedkan inaad aad u hooseeyaan balse caawse laga yaabo inay gaaraan guushoodii labaad kadib markii ay 2-0 direen naadiga Everton barnaamijkeena horyaalka Premier League intaas ayaan ku istaajinayna balse waxaa soo kale jira kulamooyin kale oo la filayo in caawa la ciyaaro kulamadaas oo aan ahayn horyaalada qaaraha Yurub balse waxaa jira kulan muhiim oo caawa la filayo in la ciyaaro ka tirsan Coppa Italy kulankaas oo u dhaxeeya kooxaha Inter Milan iyo Juventus 10 qadar 45 daqiiqo kulankan ayaad moodeen caawa si loogaan doono awoodaha ciyaaryahan Romelu Lukaku iyo waliba laacibka weyn Cristiano Ronaldo kooxdii badisa ayaa waxa ay aadi doontaa finalka Conte wuxuu dhaarsayay in kooxda kubadda cagta Inter Milan la qaado Coppa Italy ama waliba Serie A dalka Talyaani caawa si la sugi doona kulankaas barnaamijka sportiga akhyaari wanaagsan